qisadeennii gaabnayd iyo qaadkii maanta walaalayaal 3 qiso ayaan israaciilay qisooyinkii baa iga batayoo dabeetana rabadaanta inaga dhammaanaysa inkastoo sida dee daadka igu socdaan oo dadku ay ii sheegayaan haddana 3 baan isu kii raaciyay 3aasi waxay tilmaamayaan dad wax halis geliyey oo nafdoodiiba u galaaftay iyo qaar halis galay waa 3 waxay ka kala dhaceen Yaman iyo Sanaag iyo Dirdhaba ayay ka kala dhaceen aan ugu horeyna tacadan ninba wuxuu igu yaani yacdan yaroonayadu magaalada magaceeda ma sheegay magaalada Yaman ka mida wuxuu yiri waxa adkaaday biyihii iyo leydkii markaas waxa dhacday in xaafadihii ijiina in la dhigto oo la shito ayaa la sameeyay dabeetana shidaal baa gurihii la soo dhiganayaa biyihina waa yaraadeen oo caagag biyana waa la soo dhiganayaa nianu saaxiib ahayn baa aad u qayilay buuri markuu qayilay suuligiina waxa la dhigay buuri shamac baa la dhigay shamac yar oo lagu garay leeyr ma jire shamac yar baa la dhigay buuri oo baxaya ninkii intuu qayilay uu mirqaamay uu cirka maray ayuu halkuu jirikaankii biyaha ka soo qaadan lahaa mid batrool soo qaatay buuri suuligii buu la galay kalligii buu ku shubtay waa ku fool dhaqday kulaylkii ayuu yaabay oo waxaan ku gubay oo maxay u xusay bal hadda muraayada iyo halkan dabkan isku eego sharci oo baxaya ayuu musaawaje ugu dhigo dam dabkii baa qabsaday bartiibu ku qurbaxay meedkiisa laga soo qaaday ka isaga waqtigu ka dhigay ka labaad ee sanaa ka dhacday wuxuu yiri ninkaasi iga sheekeynayay isna qisada wuxuu yiri nin baa isna soo qayilay oo mirqaamay oo hadiyo goraale gali ka dambe guureeyana isna xafadii qabta doox buu ku soo hagaagay uu isri ka talow ilaahay wuxuu uga dhigay dooxii inuu soconayo biyo buuxaan de waana nin gidi maanta dab iyo qol yar ku jiray oo gubanayo wada dhidii wuxuu isri wallahi biyahan iskaga maydho mariyay buu dhigtay mid soconayaana ma jiro dabeetana illa in hataa haduu de caadi yahay quyar uu dardarsan lahaay wala nin dabaash yaqaanana waa isku tuur buuro hadaba daraq isku siiyo biyaha si fiican aad u dhaxgashiye salaxyaal waa weyn oo halkan oo cad buu dabeetana beerka ku dhuftay isagoo bartii ka waliilayo nafdi ay ku jirtaaba loogu yimo laga soo qaado sidiina uu ku baxay isagaana qisadii ka sheekeeyay taana ninka ayaa iga sheekeeyay labadaasi way ku qurbaxeen qisada labaad saddexaad ee Dirdhaba ka dhacday ee ayira wuri nimankii ay ku dhacday oo ka sheekeynayo maqaaxi fadhiyaan inuu goobjoog u ahaa wuxuu yiri qola meel ku qayishay Dirdhaba ah dabeetana baalkii bay ka dhargeen waa la mirqaamo nin kamida ayaa wuxuu taabtay ragga qaarkood waa kuwa halka qurxunta yara buuran waa ka kule ee aad ka qaarkood waa weyn halkaas buu taabtay war waxa meesha ka soo baxay waa maxay saasu buu taabto uu argagaxayba war waxba iga soo baxay halkan waxaan iga jara war waxaan iga jara buuri mid kale oo markaa isna mirqaamay ayaa tooreeyay iska soo jaro daf uu ka siiyay halkaas aadna qasiye neefti ka soo booday dhiigii markay arkeen ayay qaadeen dhakhtarkii geeyeen wariya ninkan dilo dalka kan waxa waa deetana waxay leeyahay isagu de waa kan waa sakaraade waxa tuug baa wax yara bartu dhakhtarka geeyay baritan markii ay soomi ehelkiisa ay ugu waxa ninkii tuug baa helo waa de sakaraade u kaalaya aroortii markii la isugu yimid waryaaraheed warnina cid hawshay wixii inagu dhacay hadda kii lafdiisa markii dameeshi la xiray ee la daweeyay la kala wrinina ura cid hawshay walaalayaal barakallahu fiikum baad gaalka soo maraya waa maandooriyaha inta ana salax markaa ana beerka saarin ama batrool aan isku rushaynin ama dhuunta aan iska mudin barakallahu fiikum yaa looga duceeyaa maanta ay saagaya barakallahu fiikum waxaan idin sheegayaa walaalayaal dad badan baa wali baalkii macaansanay oo niman saaxiibanay kamid yihiin oo habeen iyo maalin aanu yeerayo iga yeeli waayo wali baalkii uu si macaan yahay rag badan oo masaajidka fadhiya la sheeg barakallahu fiikum rag badan baa wali si macaansanaya ilaahay waxaynu baryeynaa kuwa si macaansanaya ilaahay inuu qaraadheeyo ilaahay xumaantiisa inuu tusayno ilaahay uga baryeynaa ilaahay waxaynu uga baryeynaa walaaladeenna inaga dhex kacay ayagana runtii ilaahay qalbigooda inuu ka saaro ilaahay waxaynu weydiisaa wax khayr qaba inuu ugu bedelo ilaahay cagaha iyo meel kasta ilaahay cagaha iyo meel kasta soo qalloocatay meel kasta naafayba ilaahay ha u toosiyo
إلهي كعافيه إلهي نبتيسيها كعافيه إلهي نبتيسيها كعافيه إلهي وحخير قبها وقبدله إلهي رزق حلالها وقبدله إلهي عودك يا أوريها يوبدك يا الله وبركيه إلهي كان إنه وبدي أوريه في عن إلهي هسيه إلهي الدنيا آخرها هو ناتشيو إلهي دمي قودي دمي والد كود بها دافو إلهي نقل هاي نود الدم دافو سبحان ربك qolyihiin aanu ballansanayn magacyadoodan aan qoreen maalintood la kulmay bari hadii Allah ilaaha soo diyaar garobaan duhurka kulan kale ayaan wada qaadanayna insha Allah taala iyo wixii dambe ayaga ku biiriyay insha Allah barakallahu fiik